xoogaa yar iga raali noqda waa ka geerooday video aan daawanay. Asalaamu calaykum kulligiin, waa idin soo dhaweynaynaa shirka maantay oo lagu xusaayo arrimaha muhiimka ah markii la fiiriyo dadka barakacayaasha iyo dadka tabarta yar oo gobolka Banaadir ka degan ama guud ahaan waddanka dhan. Meeshan waxaan ka salaamayaa wasiirada wasiir Deeqo, wasiir Hoosow, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada gudoomiye Cumar Filish, marti sharafka inta kale panelka nagala soo qayb gashay. Kulligiin salaamu calaykum. Waxaan rabaa mar labaad inaan idinku soo dhaweeyo sidii wasiirka iyo duqabeeda kugu soo dhaweeyeen shirka guriyeynta koowaad kaasine ee dowladda Hormuud ay ka tahay. Sida badankiina aad la socotaan magaalada Muqdisho waa magaaladii labaad ee adduunka koriinkeeda aad ugu badan yahay caalamka marka la fiiriyo. dhowrkii sano ugu dambeeyayna Muqdisho si weyn ayay u kobacday. 2011 ilaa ay hadda waxaa la xaqiijiyay in 500,000 oo qofeed oo barakacayaal ee magaalada ku soo barakaceen oo ku soo darsoomeen dadweynaha magaalada Muqdisho. qiyaasta tirada dadweynahana ee magaalada waxay hadda ku dhowdahay ilaa 3 milyan oo qof. markii la dejinayo qorshaha Muqdisho xilliyadii 60meeyadii iyo 70meeyadii dadweynaha waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500,000 oo qof. marka waxaa ku soo darsoontay 2.5 million people in magaalada ay degan yihiin maanta. laga soo bilaabo xilligaas 30 sano kadib dagaalo sokeeye ah dhacday saa la socotiinba. marka ay dagaaladaas dhaceen abaaro iyo dagaalo iska daba imaaday in magaalada ay kusoo barakacaan ayaa ahayd dariiqa dadka ay u arkeen xal maadaama magaaladan ay ahayd meelaha ugu dhinaca amniga marka laga fiiriyo meelaha ugu degan. laakiin barakaca ma uusan joogsan oo ilaa hadda wuu socdaa. badbaadada magaalada loo soo raadsadana ma yaraano oo dhibkeedu wuu sii batay. waxaa dhab ah in Muqdisho ay maanta sidii hore ay ka amni badan tahay isla markaana soo jiidanayso dad badan in magaalada ay ku soo barakacaan ayagoo amni iyo nolol raadinayo. marka laga soo tago doorka ee Muqdisho sanadihii la soo dhaafay ay ka ciyaartay magangelinta dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay ku nool yihiin, magaalada aad ayay u dhibaatooday. maamul ahaan dagaaladii iyo dhibaatooyinka markay socdeen waxaa jira vacuum dowladda hoose waxayna sababtay in dowladda hoose ay ka daba martay siday uga shaqeyn lahayd howlaha guud iyo qorshaha magaalada. hanaanka dowladda hoose waa mid xoogaa yar markii dagaaladii iyo dhibaatooyinka ay dhaceen ka daba maray sidaan sheegabo. taasna waxay keentay isbedelka sidii aan rabnay shaqooyinka aan rabnay in aanan la qabsanin caalamka markii la fiiriyo, especially the technology sector. marka vacuumkaas ayaan abuurmay bulshada rayidka, qaramada midoobay, saaxiibada iyo shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gudahaba door weyn ay ka qaateen in ay shaqooyinkii dowladda hoose iyo dowladda federaalka laga rababa inay ayaga xoojiyaan. shaqada ay Soomaaliya u qabteen hay-adaha gargaarka ayaa badbaado nololeed u noqday shacabka Soomaaliyeed markii ay baahidooda aad u badneed. laakiin hadda maanta waxaa la joogaa fursad oo aan haysano dowlad federaal oo xoogaysan iyo dowlad hoose oo ayadana xoogaysatay oo shaqooyinkii walaalaheen iyo dadka saaxiibadeen inoo qaban jireen maanta annaga aan doorkeena qaadan karno. dowladda hoose laga bilaabo ilaa iyo 2012 waxay sameynaysaa isbedelo iyo horumar badan oo aad ka dareenteen gudoomiyahana shalay uu ka dhawaajiyay in dariiqyada la dhiso, in guryaha iyo maxaladaha iyo dayactir lagu suubiyo magaalada. qorshooyinkaas ritina hadda la dardargelinayo, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladda hoose aanan mas'uul kaliya aysan ka ahayn laakiin also
ay uga baahan tahay shacabka degan muqdisho in ay dowladda la shaqeeyaan dowladdana lala xisaabtamo maadaama magaalada ay tahay the first line oo dadka ay soo aadaan markay dhibaato ay dhacdo kobcinteeda iyo ballaarinteedana aad ay usii dardar gashay in qorsho laga yeesho kobacaas magaalada waxay furo u tahay horumar kasta oo magaalada saameynayo planning for growth of this city waa urgent haddaanan planning aana suubsanna waan feelgaraynaynaa marka qorshahan maanta la isku soo dubariday taas ay ka maxaa la dhahay ka jawaabaysaa waqtiga wuu nagu gaaban yahay waxaan rabaa marka hadda in aan ku soo dhaweeyo stagekan si discussionka uu noogu bilowdo sababta oo objectiveska oo aan u qabanay panelkana waxay tahay in la bilaabo discussionada muhiimka ah oo ka jawaabayo idinkana fursad idin sii doono madaxda iyo dadka khibrada inaad aad weydiisaan aad fahantaan culumta iyo fikradaha ay ka qabaan idinkana aqoontiina iyo afkaartiina aad nala wadaagtaan si xal oo magaaladaanayta iyo waddanka oo dhanba wax loo helo hadda marka waxaan soo dhaweynayaa His Excellency wasiirka Minister of Public Works and Reconstruction and Housing protocolka qaldeer hala laga hado ko waxaan wacaa Cabdirashiid Xaashi oo ah the Director of HIPS Institute Cabdirashiid ku soo dhawaa stage waxaan ku xijinayaa Her Excellency Minister Deeqa Yaasin oo ah Minister of Women and Human Rights soo dhawaa wasiir waxaan ku xijinaa His Excellency wasiirka Minister of Public Works and Reconstruction and Housing soo dhawaa wasiir Cabdiraxmaan Aadam Hooso finally waxaan wacayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahne duqa magaalada Mayor Umar Maxamuud Filish soo dhawaada bismillah way maqlaysiino okay madaxda sharafta leh ku soo dhawaada panelkan oo loogu talagalay in laga helo in laga hadlo xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka marka laga hadlayo guriyeynta iyo guryaha panelka co-discussionka waxaan ka bilaabaa su-aasha ugu horeyso gudoomiyaha gudoomiye Filish gudoomiye maadaama aad tahay duqa magaalada iyo gobernatooraha waxaan rabay inaan kaa weydiiyo su-aasha sidee u aragtaa doorka ay dowladda hoose ku leedahay inay abuurto deegaan ayna suurto geliso dabaqabadka xalalka dhanka guriyeynta iyo qiimaha oo qiimo jaban la helo markay dadka badanaa waa og tahay magaalada degan waa dad danyar ijaarka iyo qiimaha guryaha lagu koriyeynin aad buu looga sheegtay marka arrintaasi haddaa waxaad nooga tataaban karta soo dhawaaw بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما سنتا هذن دورك دولة هوسة وقيبة بدنيا هاي قيبة كوباد وحى هاي قف كستا ومجالات الدجن أما كنول وحو حق قولي هاي إنه هلا باس أما عد الله أو كنول هذا sidaas loo suuro geliyo maamulka gobolka Banaadir ama dowladda hoose ee Xamar waxa ay leedahay institutions ama hay'ado hawshaas ka shaqeeya hay'adahaas waxa la yiraahdaa hay'adaha dhul bixinta ayaa leedahay hay'adahaas nidaam iyo shuruuc ay leeyihiin soo jireen ah oo aan cusbayn qofka muwaadinka ahu wuxuu soo dalbadaa dhul ayuu soo dalbadaa dhulkaas marka uu soo dalbado waxaa jira
nidaam la soo maro nidaamkaas markuu qofku soo dhammaystiro uu soo buuxiyo waxaa loo raadiyaa dowladda hoose ay dirtaa farsamo yaqaano dhuleed ayay dirtaa goobta qofkaasi oo codsaday in la dejiyo ayay tagaan waxay hubiyaan goobtaanu in ay tahay goob cabir hore uu galay oo dad hore loo siiyey inay tahay iyo inay tahay meel aan hore dad loo siiyey marka ay xaqiijiyaan ayay report ku soo celishaan maamulkii hawshaas u diray marka ay soo celiyaan oo ay sheegaan meeshaas inay suuragal u tahay ma u cuntami karto in cabir la cabiro lana siiyo dad markaas ayaa waxaa laga shubaa lacag khidmo aad u yaraa laga shubaa khidmadaas kadib ayaa waxaa loo sameeyaa warqada la siiyaa rashabuuto loo yaqaano ama la yidhaahdo resiid marka resiidku waa warqadda koowaad ee lahaanshaha dhulka yacni inuu qofkan dhul abalagareeyey codsigiisii oo qoraal ah uu yaallo xafiiska dowladda hoose ee dhulbixinta marka la xaqiijiyo ayaa rasiidkaas la siiyaa muddo kadibna waxaa process kadib waxaa loo sameeyaa waxaa la siiyaa dukumenti la yidhaha warqadda lahaanshaha dhulka marka intaas qofku uu helo ayuu waxaa la siiyaa muddo la leeyahay muddo intaas ah ayaad macnaha xaq u leedahay inaad dhisato dhulkaa lagu siiyey waxaad ka dhisi kartaa waxa noocaas tilmaamo noocaas marka qofka sidaas ayaa loo siiyaa waxaa jirta marka xilliyadan dambe duruufo adag oo la soo gudboonaatay dadka Soomaaliyeed oo ay qaarkood ay colaaduhu keenaan qaarkood ay keenaan daadadka ay keenaan qaarna abaaraha iyo waxay la mid ay keenaan waxay isugu jiraan masiibooyin aadanuhu uu keeno sida dagaaladoo kale iyo masiibooyin min Allahi xag Ilaahay ka yimaado oo la yiraahdo natural disasters waxyaabahaas markay ku yimaadaan dadka waxaa qasab ku noqonaysa inuu meeshu ku nool oo kasoo barakaco meeshii ugu dhow oo nolol uu ka heli karo iyo ammaan uu soo aado meesha ugu badan ee nolol iyo ammaan laga heli karo mar walba waxay noqonaysay marka magaalada muqdisho marka sidaad dhammaantiin ogtihiin daafaheeda waxaa aad u buuxiyey iyo gudaheedaba barakacyaashaas marka doorka gobolka Banaadir ama dowladda hoose xamar wuxuu ahaa inay dadkaas ay ka hortagaan markay magaalada ku soo dhawaadaan yacni magaalada meel ka mid ah la dejiyo wixii karaankooda oo hoy looga dhigi karo loo raadiyo markii la nolol siiyo intaa kadib waxaa jiray dadaal soo socday oo sida haddaba maanta warbixinta aad ku maqlayseen ah in dadkaas yacni meelahaas meelgaarka loo dejiyo laga raro meelo ay ku noolaan karaan la dejiyo isla markaas maadaama ayan awoodin ayagu in meelahaas yacni ay dhistaan in lala kaashado hay'adaha oo deeqda bixiya ay mataqaanaa bixiyaan qarashaadkii wixii loogu dhisi lahaa kadib yacni kambaniyada ama shirkadaha wax dhisana ay u tartamaan markaas tartan furan ay u tartamaan dhismihii meelahaas haddii aad marka arrinta aan wadno waa midaas doorka uga aadan gobolka Banaadirna waa sidaas aan soo sheegnay oo ah qofka caadiga ah oo muwaadin caadiga ah oo u baahan guri soo ku heli lahaa iyo qofka barakacyaasha sida loola tacaamulo intaasaan uga jawaabi lahaa su'aashii la weydiiyey bilaa tawfiiq salaam alaykum warahmatullahi aad u mahadsantahay gudoomiye saa sheegtay gobolka Banaadir dowladda hoose doorar badan ay ka ciyaartaa oo haddana ay saaraysaa diiradda waxaan rabay inaan ku soo dhaweeyo madasha minister Deeqa Yaasiin oo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha
wasiir soo dhawaaw waxaan rabay su-aasha ugu horeysa aan weydiinayo barakacinta qasabka ah waxay xadgudub ay ku tahay xuquuqaha aadanaha maadaama aad tahay wasiirka arrintaas loo xil saaray arrimaha human rights-ka sidee ayay wasaaraddaada u taageeri kartaa in guriyeynta adequate housing loo yaqaano mudnaanta lagu siiyo arrimaha horumarinta ay u leedahay dowladda federaalka dhinaca wasaaraddaada soo dhawaa wasiir haddaan ka hadlo dhinaca xuquuqda shirkan mawduuciisana waxa waaye wuxuu salka ku hayaa xuquuq marka haddaan xoogaa idin dul maro Soomaaliya dastuurkeeda arrimo ayay hadlaysaa xuquuqda muwaadinku leeyahay waxaa kaloo jira conventionno oo Soomaaliya dowlad ahaan ay u saxiixday oo adduunka ayaan wax la wadaagnaa xuquuqdaasna in conventionadaas ay ku jiraan waxaa kaloo ka mid ah haddaan conventionkaas ka hadlo conventionka loogu magacaabo social and economic rights xuquuqda dhaqaalaha iyo midka socialka ahba marka kaas Soomaaliya waxay ka mid tahay waddan ahaan xuquuqdaas marka conventionkaas ku jira wuxuu annaga dowlad ahaan nagu waajibayaa inaan muwaadiniinteeni xuquuqdaas ay helaan constitution-keenina waa ka hadlay isna si ma aragtay wuu ka hadlaa xuquuqahaas laakiin midda guriyeynta ma taabanayo si oo ma aragtay cad laakiin xuquuq oo ma aragtay oo si guud ah ayuu uga hadlayaa waxaa kaloo jirta waxa loo yaqaan UPR oo sanad walba 4 sano 2 sano Soomaaliya ay ma aragtay recommendationno ay dowladaha kala siiyeen sida la socotiin naga Soomaaliya 2019 bishii Janaayo waxay ka mid noqotay xubin guddiga xuquuqul insaanka ma aragtay qaramada midoobay marka sanad walba dowlad kasta recommendation ayay dowladahu kala siiyaan saasoo kale iyadana arrimahaas ayaa waajib nooga dhigaya sida la socotiin inta ugu nugul IDPs-ka ama dhibaatooyinka guriyeyntu haysto waxa waaye caruur iyo haween annagoo intaasoo dhan ma aragtay soo koobayna haddana waxaa muhiim ah xaaladda aan ku jirnana iyadana waxqabadkeennu inuu ku salaysan yahay waxaan nahay dowlad waddan dagaalo sokeeye ka soo kabsanaya 30 sano ka badan mar walba dowlad kasta oo timid horumar ayay waddanka gaarsiisay marka hadalkayga waxaan ku soo gunaanadaa dastuurkeena xuquuq inuu siinayo muwaadiniinta Soomaaliya maadaama aysan waddan kaligeed u taagan aysan ahayn ay dowladaha adduunka aan la xisaabtamayna oo aan wax la qaybsanaynana inay jiraan conventionyo la saxiixay oo ayagana sidaas oo kale xuquuq faraya oo dowladda Soomaaliyana ay mas'uul ku tahay intaasoo dhan markaan soo sheego sidaas oo kale caruurta iyo haweenka inay yihiin dadka u nugul dhibaatooyinka markii lagu nool yahay goobaha barakacayaasha taasna inaan ifiyo inaan rabo sidaasoo kale marka annagoo intaasoo dhan fiirinayna waxaa fiican inaan eegno xaaladda aan ku jirno waxyaabihii la soo qabtay ay ka mid tahay madashaan in wada hadalku ka bilaawdo waa mahad weyn waxaa kaloo jirta in oo unugan gobolka Banaadir laga abuuray marka waxaa muhiim ah siduu ma aragtay duqa magaalada sheegay doorka dowlad Banaadir ahaan maadaama ay dadku ugu badan inta ay yihiin waxaan aaminsanahay haddii waxqabad aan inta kaga bilaawno
inay noo suurtagelinayso maamul goboleedyadeenna iyo deegaankeenna oo kale inaan sidaas oo kale aan u gaarsiino. waxaa kaloo iyada sidaas oo kale muhiima inaan kala fahanno barakacayaasha cusub iyo kuwii ku raagay oo loo baahan yahay xal waara in la gaarsiiyo. waxaan isleeyahay intaas anoo waqtiga beeqaaminaya inaan intaas ku soo koobo kadibna aan fursad u siiyo walaalahay kale kadibna haddii loo baahdo aan kusoo noqdo. mahadsantiin. aada u mahadsantahay wasiir deeqo. waxyaabaha ka dhawaajisana waa lafdhabarka I think oo markii laga hadlayo xuquuqda xuquuqul insaanka especially sectionada oo guryaha ku saabsan. raalli naga ahaada xoogaa technical issues yar oo korontada dhinaceedaan haysto. maybe another waxaan u baahanahay session kale oo looga hadlayo energy use wadanka. hadda waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka Ministry of Public Works wasiir Hoosow. aad u mahadsan tahay leadershipka aad muujisay madashaan in la furo iyo doorka wasaaraddaada ay ka qaadatay. waxaa taas ay ka turjumaysaa baahida guud ahaan gobolka uu qabo iyo leadershipka oo dowladda federaalka adiga u matalayso. waxaan rabay xoogaa yar inaan uga taabato wasaaradda public works maxay measureska ay qaadatay maxay tahay ama ay qaadan doonto markii laga hadlayo baahiyaha loo qabo guryo oo qiimo jaban oo tayana leh investment ahaan maalgelinteeda wasaaradda qorsho weyn may ka leedahay oo hadda ay ka shaqaynayso. haddii wax yar aad nooga taaban karto overview-ga wasaaradda. soo dhawaa wasiir. waa mahadsantahay Dr. Hodan. kow horta xuquuqda qof walba uu u leeyahay inuu guri helo taas aan ku bilaabo. xuquuqaad wax u leedahay macnaheedu ma aha inaad helaysid. shaqay rabtaa taas laftigeeda shaqay u baahan tahay. xaqaan waxaas u leeyahay waa helayaa ma jirto. annagaana laga rabaa inaan taas ka dhabayno. cid kaloo noo imaanaysa ma leh. qorshihii ahaan jiray waa nala caawinaa koraana looga imaanaa Soomaalina inaan iska ilownaa la rabaa. annaga waxayna aan samaysano waa one. tan labaad su-aasha aad weydiisay haddaan u soo noqdo wasaaradda howlaha guud 3 portfolio isugu jirtaa. waa guryeynta, howlaha guud iyo dib u dhiska. marka guryeynta qayb ka mid ah marka waddanka oo dhan policy saameynayay hadda ka shaqeysaa. guryeynta guud ahaan horta waddankan siduu u ekaanayaa 25 sano 30 sano hadda soo socoto. yacni siduu u ekaan doonaa waddanka haddaanan hadda annaga wax u qorsheynin. qof walba meeshuu rabuu iska degaa hadhowna wax lagama qaban karo. yacni u fiirso nabadda hadda aan haysano dowladnimada iyo Soomaaliyadan cusub dadkii oo dhan waa soo noqonayaan. tusaale dad badan oo ka yimid dibadihii baa halkan jooga. qaar ku dhashay dibadaha oo soo noqdayaa joogo fadhiyaad. marka dadkaas oo dhan waxay rabaan meel ay degaan. haddaan policy loo helin qorshe loo helinna qof walba meeshuu rabuu iska degaaya. taas horta waa ka shaqaynaynaa. kow waxyaabahan ka shaqaynayna waxaa ka mid ah guryo noocee ayaan u baahannahay annaga haddaan Soomaalinahay. Yurub waxaa arkaysaa dad badan oo tagaya joogo guryo dhaadheer oo dhala oo nunuuraya leeyihiin. annaga ma u baahannahay mise kuwan caadiga ahay oo yaryarka ahay oo gaagaabnaayaan anfacayo. raw material waa haysanaa. Yurub waxyaabaha doodaha ka mid ah oo guryeynta marka laga doodayo guryahaas dhaadheer oo dhalada ka samaysan oo waxaa loo sameeyay Yurub inta badan waa mugdi iyo America the Western Hemisphere waa mugdi in wixii horta ay ifaan. midda labaad waa qabow. dhaladaasi waxaas inay kuleel u keenaana loo sameeyay. annaga ma u baahannahay mugdina ma nihin qabowna ma nihin. marka guryeynta guud ahaan
wasaaraddu waxay ka fekeraysaa koow waddanka sida aan rabna inuu ahaado waddanka oo dhan sida si hadhow uusan u gelin meel aan waxba laga qaban karin oo qof walba meeshuu rabay uu iska degay midda labaad arrintan qaxootiga waddan 20 sano dhibaatadana soo martay ay soo martay ma fududa si degdeg ah in looga baxo haddii hadda la idiin sheego dadka Soomaaliyeed aan u sheegno xal degdeg aan u haynaa been aan u sheegaynaa shaqo badan ay u baahan tahay wax magic wand oo sidaas kun fayakuunu cid samayn karta ma leh shaqay u baahan tahay shaqadaas gobolka Banaadir waa bilaabay in inta karaankiisa gobolka uu wax ka qabto Allah u naxariisto gudoomiyaheenii hore qayb weyn uu ka lahaa adiga iyo tiimkaaga aada uga soo shaqayseen gudoomiye Umar waa sii wadaa waxaan habeenadan oo dhan ka wada hadlaynaa arrintaas ay ahayd laakiin ma rabna gobolka kaliya inay ku ekaato waxaan rabnaa in Soomaaliya oo dhan la gaarsiiyo wax yaroo kala bedelnaan ah waa jiri kartaa maamulba maamulka kale uu ka yara bedelnaan karo laakiin national policy waa inay jirtaa waxyaabaha aan ka shaqaynayno taasaa ka mid wax badan oo aan la sheer garayn karo laakiin nasiib daro haddana waxaan ka cabsanaa nalkii inuu mar kale nagu damee intaasaan kusoo aada u mahadsan tahay wasiir waa run wax kasta markii laga shaqeynayo horta hore in qorsho loo yeelo markii waxyaabaha oo mararka qaarkood waddankan la keeno laga yaabay in aysan ahayn anaga xal aysan noogu jirin marka aada u soo dhaweynaynaa arrintan oo bal maxaa u baahannahay wax kastoo la qabanayna inay qorsho iyo nidaam ay ku socdaan oo dawliya hadalkan waxaan ka dhaminayaa isku tasho Soomaalida islana tasho inay tahay soo aada u mahadsan tahay hadalladaas hadda nala share garaysan hadda waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdirashiid Xaashi oo Director of Hips Institute Cabdirashiid Todoobo waxaan rabay inaan xoogaa yar aad nooga faahfaahidid maadaama barakacayaasha magaalada ay ku soo barteen ugu yaraan hadda la dhahayo maybe even close to 800,000 ay joogaan sida wasiir deeqa ay dhahdanay barakacayaasha qaarna way cusub yihiin qaarna way raageen Hips Institute-na uu ka soo shaqeeyay cilmi baaris badan aad subiseen arrimaha ku saabsan Hips barakacayaasha waxaan rabay xoogaa yar inaan uga taataabato maadaama barakacayaasha ay gudaha laga soo qaxiyay guryahooda iyo mujtamacaadka isla markaana uu jiro cadaadis isa soo taraya oo ku aadan inay laabtaan dadka meelaha ay ka imaadeen ay ka soo barakaceen sidee ayaa u aragtaa arrintaas oo la xiriiro dib u noqoshada iyo siyaasad ahaan dadka xuquuqda ay leeyihiin haddii xoogaa yar nooga tataaban karto soo dhawaad waa mahadsan tahay hodan waana salaamayaa madaxda kale oo meesha fadhida iyo dhegeystayaasha horta aniga waxaan qabaa in dib loogu laabto macnaha hadda ereyga barakacaan raba aniga su-aal ka qabaa ama IDP ama barakace markii la isticmaalo dareen ma ku galayo haddii IDP aad tiraahdo waa KGB oo kale ama XYZ marka hore dadkan yay yihiin in la dhaha waaye kadibna micno iyo magac saxa la siiyo problemka wuxuu ka bilaabanaa dadkii magaaladu waa ku nool yihiin waana nool yihiin laakiin la isma arko darisaa la isleeyahay lagama warqabo marka horta kow magaca barakaca magaca fiican maahan dadkan badankooda sida wasiir deeqa ay tiri waa caruur Soomaaliyeed waaye horta dadkan annaga aan barakaca ku sheegayno oo 15 sano ka yar marka aniga waxaan soo jeedinaa inta magaca kale la helayo in qof kasta magaca ka fakaro oo sax oo barakacayaasha aan laga daayo waxaan iyo IDP because then there is no sensitivity there is dareen ma jiro waa la iska
ja waaye hadda IDP tiraahdo laakiin la tiraahdo caruurteennii oo habeenkii gaajo ku seexda waaye basically caruur Soomaaliyeed oo habeenkii markay seexdaan aan cunto cunin oo macnaha 500 kun 600 kun magaaladan ku hoyda marka haddii rabto xalka in la gaaro waa in description-ka iyo definition-ka lagu mintidaa oo say u yihiin loo sheegaa haddii marka 500 kun oo wiil ama gabdhood oo 15 ka yar magaalada gaajo ku seexdaan waxaa fududaanaysa siyaasiyiintu inay waxaa adkaanaysa siyaasiyiintu inay falaadaan oo maalba istagaalamaan oo lacagta ayagu isku burburiyaan sababtoo 600 kun oo cunug oo gaajaysan cuntaha la sii imaanaysa waxaa imaanaysa ganacsatada iyo tujaartu inaysan sandareerto tuurtuurin oo lagu khasbay in dhaho dadkan 600 kun oo cunug oo gaajaysan magaalada joogto waxa laga qabto marka koow waxaa dhahay definition-ka ha lagu mintido oo ereyadaan aan dhadhanka lahayn oo dadkan lagu tuurtuurayo hal iska daayo taas waa tan labaad dadkan ma noqonayaan daraasadaha ayagana la weydiiyey waxa waaye 70% waxay dhaheen meelaan u soconna ma jirto qaar beeraley ahaayeen beerihii baa ama shaqadii waa iska hilmaameen muddo xoogaa meesha joogeen ama wixii soo ceeriyaa jira qaarna amni darra keentay marka underlying cause ama salka hoose waxa weeye in amniga xal loo helo oo nimankan shabaabka oo dalkan u xaniban yahay xal loo helo haddaan shabaabka xal loo helin oo amniga xal loo helin dadkan soo barakacay ama abaarta ka soo kacay iyo beeri inaysan falan karin ama amni darrada u barakacay meel ay u socdaan ma jirto marka marka haddii dadka caruur u badan yihiinna xalkoodu waxa weeye in wax la baro basically macnaha ciyaalkeennii oo yar oo 12 13 9 5 jiro waaye haddaan sida ugu degdegsan loogu mintidin sidii wax loo bari lahaa say independent u noqdaan oo farsamo gacan wax kala dheh marka xalku waa qofka miskiinka oo Soomaaliga ama ha noqdo qof oo maaragtay meel kale ka soo haajiray anigu barakac ma isticmaali karo ama qof magaalada jooga ha noqoto faqriga iyo guryo la'aanta iyo waxa la sheegayo oo dhan waxa sababa qofkii waa isku filayn therefore waa in la helo qof Soomaaliya oo wax soo gali karaan dawladda ama gobolka federaalka ama gobolka Banaadir ama Puntland hal shilin oo dhexda ka daleelo macna lama haystaan waa inay doonayaan xoolaha u weydiistaan marka waa in si holistiga ganacsatada dadka diaspora jooga qofka laftigiisa wax la barayo Soomaalidu inay ku talagasho inay long term ceebtaan iska dulqaado xisbiyo iyo siyaasiyiin u dooda xuquuqda dadka masaakiinta hadday soo baxaan ayaga hadda cod la weydiisana hadda barakacayaasha dadka loo sheego markii mudaharaad raba loo yeertaa basically $5 loo diray oo mudaharaad aldaa waa inay soo baxdo qofkii siyaasiyiinta inta fadhiya ama kuwa xagga fadhiya dad siyaasiyiin oo u dooda dadka danyarta loo baneeyay dadka Soomaaliyeed wasaaradda balaninka qorshaha hadda October waxay sii deysay National Development Plan waxay tiri 8% dadka Soomaaliyeed $2 maalintii ma helaan $2 a day poverty line ku nool yihiin marka siyaasiga kursi raba dadkan guryahooda iyo si wax loogu dhisi lahaa oo shaqo loo siin lahaa had diyaarsado kadib cod waa helaa dadka marka champions u baahan yihiin waxay u baahan yihiin wax la baro u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dadka iyo carruurta u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in aan ognahay tabarteena kadibna si holistiga aan isugu nimaadno aad u mahadsantiin aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdirashiid waa horta muhiim in labelinka ka socdo arrimahan dadkan dhibaataysan walaalaheen magaalada jooga wadanka meelihiisa kalena ku nool barakacayaasha loo bixiyay waa dehumanizing hadda ka dhawaajisa and I agree with you waa inaan ka fikirnaa Soomaali ahaan dadkan walaalaheen sidee labelinkan XYZ ka sidoo Cabdirashiid ku sheegay hadda oo wallahi saxan sidee ugu gudubnaa haddii technically ahaan looga hadlo boqolkiiba 60 waa under 18 waa dadka oo barakacsan oo magaaladan ku nool majority of that waa gabdho iyo maxaa la dhahayay kids under 5 actually marka waxaan rabay wasiir deeqo inaan weydiiyo maadaama saboolnimadan ay aad dadka u saameynayso especially barakacayaasha dumarka especially markii loo sii fiiriyo oo ay ka nugul yihiin ragga marka la fiiriyo economic opportunitieska
maxay wasaaradda ka qaban kartaa ama sidee wasaaradda u kaalmeyn kartaa dumarka ay ugu furi lahayd fursado oo economic opportunities ah? soo dhawaad wasiir. waa mahadsan tahay hodan. wasaaradda horta xuquuqda oo guud ahaan iyo xuquuqda caruurta iyo haweenka intaba waa ka shaqaysaa iyo dadka naafada ah yaan la iloobin dadka nugul dadka naafadana waa ku jiraan. marka horta xuquuqdaas ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan in oo aan la nimaadno shuruucdii iyo boolisiyadii taas waa wax waajib wasaaradda saaran iyo dowladda inteeda kale. laakiin haddana shaqooyinku waa la kala leeyahay waana laysla leeyahay. hadda wasiirka walaalkay mas-uuliyaddiisii ay tahay gurigeynta, aniga mas-uuliyaddeedu waxa waaye inaan la shaqeeyo inaan u ifiyo xuquuqda dadka nugul iyo ma aragtay maadaama ay caruur iyo haween u baahan yihiin. waa ku raacsanahay walaalkay cabdirashiid magaca waa in aan dad ku xirnaa si aan ugu nugnaan dareerku ugu bato. meeqa caruura iskool dhiganin oo maaragtay darbiyada jiifa oo koolo dhuuqa, meeqa caruur ayaa naafo oo iskool tegin. marka intaas magac haddaa u yeesho annagoo dhan iyo maxaa la dhahaa dadkeenna maaragtay ku jira businesska waxaan ka codsan karnaa in ay maaragtay ayagana mas-uuliyad ayagana way saaran tahay. waxa adduunka dadka ay ugu yeeraan social responsibility inkastoo ay haddaba hore u suubiyaan ay businessyada waaweyn iyo shirkaduhu ay leeyihiin laamo arrimaha ka shaqeeya, laakiin in la sii badiyo oo waxaa muhiim ah shirkad walba ee weyn inay ku caanbaxdo dhinaca dadka nugul inay wax ka qabato oo hadhow iyaga ay ku soo caanbaxaan oo ay raadsadaan. haddaan usoo laabto marka wada shaqayn ayaa naga wada dhexayso maadaama wasaaradda responsibilitygeeda ugu weynaa mas-uuliyaddeeda ay ayaga tahay. haddana qof walbaba mas-uuliyaddaas dhinac buu ka soo gelayaa. aniga waxaa muhiim igu ah inaan wasiirka xasuusiyo xuquuqda ay ma aragtay dhaqanka iyo diinta iyo shuruucdeenna iyo dastuurkeenna iyo kuwa caalamiga ee aan madax aan nooca aan ka mid nahay inuu mar walba aan xasuusiyo dhinaca caruurta dhinaca haweenka dadka naafada ah. taas ay inta iiga aadan iyo xoogaa inaan ku kormeero in hadduu xuquuqdaas uu ka shaqeeyay laakiin wada shaqayn ayaa naga dhexaynayso. sidaas oo kale gobolka banaadir oo dadku ugu badan ay degan yihiin. marka waxa waaye xuquuq mas-uuliyadna waa mid gaar u ah wasaaradaha, midna waa mid ay midda kale ka shaqeynaya. inta badan wasaaraddeeda mas-uuliyaddeeda waxa waaye xuquuqyaha maqan oo meel kasta gelaya oo caafimaad gelaya oo waxbarasho gelaya oo guriyeyn gelaya inaan ku ma aragto ku kor joogtay. haddaan aan hadalkaas aan inkastoo kor joogtayn ay hadal aad u weyn tahay laakiin haddana aan ku kala wada shaqeeyo. intaas ayaan aan isdhihi lahay jawaabteedu waa taas. aada u mahadsan tahay wasiir deeqo. wada shaqaynta dowladda federaalka aaday muhiim u tahay because shaqooyinka wasaarad kasta wasaaradda kale ay dhexgalaysaa. marka kulley hadda waan dareemaynaa wada shaqaynta wasaaradaha inay kasii xoog badneyd intii hore. wasiir hoosow hal su-aal karaa ku dhiban adigana aan rabay inaan kusoo jeediyo. caqabooyin badanaa jiro wasaarad kasta way leedahay. gobolka banaadir wuu leeyahay caqabooyin oo arrimaha guriyeynta iyo dejinta iyo dhulalka iyo waxyaabahaasaydi. marka waxaan rabay in aad wax yar nooga taataabato caqabaha wasaaraddaada ay face garaynayso markii laga hadlayo guriyeynta iyo qorsheynta guriyeynta wasaaradda federaalka. بسم الله الرحمن nolosha oo dhana doctor-hadan caqabad ah. canuga markuu dhalanayo hargabaa ku dhaco malaria ku dhacdaa la leeyahay wax le markaad dhalanay sidee bilaabanay macnaha raaxa ma jirto inaadan dhalanaa fiican. mar haddaad dhalato it starts there ilaa aad ka dhimatid. shaqadana qayb ka mid ah waaye. marka caqabad si maalin lehay u jirtaa si saacad lehay u jirtaa
ma dhammaato laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidaad xal ula timaadid iyo sida aad caqabad ula macaamishiday ku xiran tahay saaxiibkay hebs ayaan rabaa waa runtiis in siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo ayuu wax ku tuuray oo waxaan dhihi lahaa adinka xitaa dhinaciina wax lee ku dara macnaha waa mas-uuliyad wadareed annagoo dhanaa ka mas-uula dhibka waddankeena uu ku dhacay annagoo dhanaana ka saari karno mahmaha waxaa jirta dhehayso afmaaya ajuusahoo batriyaasa aada ku bilaaw macnaheeda waxaa waaye haddaa ajuuso tirinaysid balballaari uu dhihi jiray oday ii balballaari haddaan balballaari macnaheeda waxaa waaye haddaad ajuuso tirinaysid hooyadaa ka bilow marka we are all guilty annagoo dhan ayaa ka mas-uula wixii waddankeena ka dhacay annagoo dhanaan ka saari karna haddana kii af uga qayb qaatay kii qabyaalad uga qayb qaatay kii been u sheegay kulli waa ku wada jirnaa marka cid gaar loo dhihi karo dadkaasaa ka mas-uula ama weli dhibka nagu hayo ma jiro haddaan ka soo tago caqabadaha guriyeynta waxaa ka mid ah horta kow waaba sheegay dhulkiiyaanba la heli karin waa hal arrin oo problema waxaa arkaysaa markaad taas ka soo tagto guri dowladeed baad rabtaa inaad dad ka saarto oo loo bilaabo maaragtay dib u dhis lagu sameeyo ka saaristaas mudday qaadanaysaa waxa aad la diriraysana xayawaan ma aha waa bani aadan waa qof soomaaliyeed oo laga yaabo inuu dowladdii qayb ka yahay laga yaabo inuu agaasime yahay agaasime waaxeed yahay director general yahay ayaa kula diriraya oo wixii haysto ama isagiiba ma haystee nin haysta ayuu garab u yahay oo uu ku kaalmeynayaa doomigii marka caqabad si daylihay u jirtaa laakiin sidii hore ma ahaanayso tartiib tartiibaa looga soo kabanaya sababtan doctor hodan ugu celcelinayo waxaanan annaga samaysan nooma samaysmayaan tusaale yar oo kugu filan isxilqaan waaye tiyaatarkii hadda by January in la furi doonaan u malaynaa dad caadiyaa samaynayo oo Soomaaliya dadkii kow meesha wada tegay oo hawsha isla bilaabay islama joogaan qaaraa ka tegay qaarna weli waa joogaan ilaa ay ka dhammaato kulli goobaha isxilqaan lagu wado dhan waa saas annaga hadda inta ku fadhina meeqa sheeyaan samayn karnaa maanta oo waddanka dan u ah waa badan tahay walaashay waxay tiri wasaaradahoo dhan ayaa isku xiran oo ka wada shaqaynaya yes qayb walba qaybta kale ay kusii xiran tahay wasaaradaha gobolka sidaasoo kale wasaaraddii wuu kusii xiran yahay gobolka banaadir oo annagoo dhan hadda aan joogno dowladdii ay degan tahay wasaarad walba meeluu kaga xiran yahay yacni dowladdoo dhana isku wada xiran oo noocaasa marka haddii personal sacrifice aan samayno oo qof walbana uu ku dayo inuu qof kale uusan eedin ee asaga isfiiriyo waddankan waa hagaagaya personal sacrifice aniga tusaale ahaan 2 saac iyo bar 3 saac ayaan wasaaradda fariistaa weydii soo baar 9 saac iyo barna waa ka soo tagaa agaasimayaashayda qaaraa halkan fadhiya oo marqaati ka noqon karo aniga haddaan 2 saac iyo bar 3 saac soo fariisto agaasimo waaxeedna ma goyn karo shaqaale hoosaadna ma goyn karo ilaan anaaba jooga maalintaas marka waxay noqonaysaa maalin ummadda loo shaqeeyay qof kasta hadduu sidaas sameeyo oo personal sacrifice sameeyo waddanka waa dhismaya thank you aada umahadsantaha wasiir wada shaqaynta iyo in qof kastaba mas-uuliyadda ka saaran aan meesheeda ka xoojiso one quick waxaan siinaa fursad cabdirashiid haddii aad nooga taaban karto 2 points gaps hadda jiro aa is leedahay arrimaha policyga marka laga hadlayo barakaca hadday jirto just 2 points su-aasha u dambeyso waxaan rabay inaan ku celiyo waxaan fursad siinaa wasiir deeqo kow kadibna cabdirashiid quickly waqti aan nahaayo su-aasha ugu dambeysana waxaan siinaa guddoomiyaha gobolka banaadir
inuu asagana kasii fikiro ra'yiga iyo fikradda uu ka leeyahay magaaladan in 10 years ay noqon lahayd gudoomiye taas kasii fikir wasiir deeqo kadibna cabdirashiid kadibna soo xirina soo dhawaad anigu tayada kaftan waaye wasiir ma ahmaayo moogtahay cajuuda iyo habar buu ka hadla mid bal iyo bal noogu dar si oo u runtii macnaha haddii dadka walaalaheena oo malyanka ka badan oo dalkan deegaanada iyo nolosha ku haysan iyo kuwa malyanka ayagoo qaxootiga bannaan ku maqan annaga waxaan aragnaa actually cilmi baarista kale waxta world bankiga ay samaysaan ay soo saaraysaa horta xal degdega ma jiro there is no quick solution sida hadda wasiirka yidhi laakiin dadkan horta haddii barobalayn magaalada amni darrana ku haya magaaladana fool xumeynaya loo arkana waa wareer saxna maaha haddiise loo arko dadkeennii oo walaalaheen iyo hooyadeen iyo caruurteennii haddii loo arko waa in horta prioritigooda la geeyaa madaxweynuhu waa inay habeenkii iyo maalintii uu ka seexan waayaa dadkan sidii qof kasta xal loogu heli lahaa ra-iisul wasaaraha uu ka seexan waayaa wasiirada annaga sidii hadda wasiirka walaalkay u sheegay marka culimmadu inay ka hadasho oo fiiri inaan hadda durable solutions iyo warka ajaanibta iskasoo turjurno oo durable solution iyo IDPs iyo waxaa ka fiican waxa annaga haysano inaan isticmaalo our own resource diinta islaamka la sheego inay dembi tahay qofka dariskaaga inuu gaajo seexanayo suugaanta in la isticmaalo marka we need to be indigenous and genuine and natural rather than inaan marka waxaan u baahannahay local solution holistic ah ay priority u tahay qof kasta loona baahan yahay in dadkan culays aan loo aragay 100 qof oo 1 milyan oo qof oo ku tari lahaa oo ka xaniman inay tahay marka aniga waxaan qabaa inaan runta u soo daadegno aniga wasiirka hadda wasaaradda wasiirka ka yahay 10 sano ka hor aan wasiirka ahaa 10 years ka hor 2010 ama 9 aan wasiirka ahaa wasaaradda dadka wasiirka ka yahay barigaas waxaan agaasimayaashin hadda way muuqdaan saaxiibaday lacagta dawladuna siin jirtay lacag aad u yar bay ahayd oo maxaa la yiraahdaa baasiinka xataa baabuurta aan ugu shubi jirin haddana waxaan malnaa dawladda budgetkeeda dhawaan 275 300 million 400 million 400 millionna waaxda dhulalka ee gobolka banaadir u baahan ama wasaaradda xuquuqda insaanka u baahan dawladda marka lacag ma haysto waa inay dadka saas ugu sheegaan hal shilin oo dhexda ka daloola ma haystaan laakiin meeshaan baar bulsho ahaan jirtay 10 dabaqaa laga dhisi karaa dadkaan degan loo dhiso for example baar bulsho meesha hadda ku yaala oo baarlamaankuna ag maro madaxduna ag marto tijaartuna ag marto waaba loo dhisi karaa guryo dheer oo laga dhisi karaa alaa kulli xaal dadkaan meel ma socdaan dawladdaana lacag ma haysto eedan ayadu ma lahan wareerka guudna amni darra keenay iyo shabaab guud ahaanna waxaan u baahannahay in qofka Soomaaliga la tayeeyo si uu isugu filaado aad u mahadsantiin and thank you Abdirashiid and waa runta quick solutions ma jiraan and labeling kan iyo externalization of issues kaanaytana waxba nooma tarayso and run ahaantiina horta hore and I agree with you in internally anaga horta aan isfiirino dowlad ahaan ama federaal ama gobolka banaadir ama gobolada kale baahida way weyn tahay waxa aan gacanta ku hayn resourceskana way yar yihiin laakiin koo horta waxaa loo baahan yahay will political will inuu jiro kadib ay wax kasta imaan karaan kadib qorshe waxaas laga shaqayn karaa marka haddii political willka hadda sida gobolka banaadir oo u muujiyay dowladda federaalkana u muujisay la sii xoojiyo deeq-bixiyaasha iyo waxyaabaha na soo galaya in reorganization lagu suubiyo wax waa la qaban karaa madashaan maanta la fuliyay la muujiyayna ministeriga iyo gobolka isla wadaana waa bilaabo oo marka horeba aanan jirin in discussionkaaniti maanta uu dhaco si wasiir deeqa ee couple times actually iidan ay uga dhawaajisay discussionka wuu bilaabana waxaan rajaynaynaa insha allahu in aan natiijada kasoo baxdo conferencegaanayti ay u noqoto starting point for gobolkan
annagoo kaashanayno wasaaradda. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa su-aasha u dambeyso gudoomiyaha gobolka banaadir. gudoomiye, maadaama aad gudoomiye u tahay 3 milyan oo qofood ay ku jiraan dadkan barakacayaasha walaalaheen dhibaataysan, sidee u aragtaa 10 sano soo socota in 10 years haddii ay heli lahayd your wish, maxaad jeclaan lahayd magaalada in heerka ay gaarto, aad gaarsiin lahayd ama sida u aragto? magaalada muqdisho sida inteena ku nool aan ognahay waa magaalo kobcaysa xagga horumarka, dib u dhiska, nadaafadda, yacni way kobcaysaa. dib u dhis fiicanaa ku socda, waxaa ku socda xaggii nadaafadda, adu dadaal badanaa socda. laakiinse runtii markii la yidhaahdo 10 sano kadib maxay noqon doontaa, waa wax ilaahay subxaana wa tacaala kaliya yaqaan. magaalada muqdisho inay hadda dib u dhisanto, nolol fiican ay hesho, yacni ay soo kabanayso, waxaa hadda sababta ugu weyne waxay tahay macnaha dagaaladii iyo burburkii iyo dhibaatooyinkii lagu soo jiray ayaa laga soo kabanaya. dagaaladii iyo kuwii mataqaanaa xabadda ka dhex ridaayay, qaraxyada sameynay, wixii ayaa magaalada laga saaray, waxaa loo waday baadiyaha la geeyey, gobollada la geeyey. haddii gobollada la geeyey xoogaa dadkii neefaa ka soo go'day, waa soo roonaadeen, waxay niyeysteen yacni inay wax guryahooda xaaqdaan, ay rinjiyeystaan oo mataqaanaa noloshooda ay soo kabaan. haddii amnigu uu soo kabmo oo yacni sidaa uu agaasimihi cabdirashiid u yidhi, dhibaatooda ugu weyn, challenge ugu weyne dalkan haystaho waxa waaye waa shabaab iyo inta amni xumada ka shaqaysa waaye. haddii marka amni xumadii ay sii yaraato, magaaladan waa sii dhismaysaa, waa sii horumaraysaa, waxay gaaraysaa magaalooyin ama ay dhaafaysaaba magaalooyin aan la kulmin dhibaatada muqdisho ay la kulantoo kale. way dhaafaysaa, waa hubanta 10 sano gudood. waa haddii amnigu uu soo hagaago oo amniga dalka yacni laga adkaado kooxahan dhibaatada ku haya. haddii markaa kooxahanu ay soo tabaraystaan, ilaahay ma qadaree, oo dhibaatada ay soo badatana, magaaladan kuwa hadda dhisanaa dumaaya. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in magaalada ay dhisanto, dhinac walba ay ka horumarto, lagana adkaado heer habaarkan kuwan oo dhibaatada nagu hayo wax walba duminaya. marka dareenkeena koowaad marka waxaa loo baahan yahay inuu noqdo sidii looga adkaan lahaa al-shabaab iyo kooxaha kaloo la midka ah oo khasaaro iyo dumin iyo dhibaato uun u taagan. marka haddii aan taas isla abaarno oo aragtideenna iyo maskaxdeenna iyo muruqeenna iyo maalkeenna aan isugu geyno sida kuwaas looga takhallusi lahaa, taasi waxay ka dhigan tahay annagoo maskaxdeenna iyo maalkeenna iyo muruqeenna isugu geyna sida aan ku horumari lahayn. haddii qaarkood ay taagan yihiin, ay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya, wiilasha soomaaliyeed ee xiran calanka soomaaliya tuutooda ku xiran yahay iyo al-shabaab, hadday qaarkeed uga dhigan tahay 2 kooxoodoo football isugu timid garoonka ciyaaraha, aysan uga duwanayn, horumarku ma dhowa, magaaladana ma dhismayso, inta hadda dhismana waa dumaysa. haddii laakiin aan wada fahamsannahay meesha nala ka hayo dhabtaa inay tahay kuwaan, waxa waaye waxaan fahamsannahay yacni waxa horumarkeenu uu yahay iyo horumar la-aanteenu waxay tahay oo aan fahamsannahay ka dhigan tahay. sidaa darteed waan rajaynaynaa insha allahu tacaala in magaaladanu ay noqoto magaalo la tartanta magaalooyinka dhiggeeda ah. magaalada markaa sida haddeertaanba aad u jeediin, iyadoo qaraxyadaas aad aragteen ay ku socdaan oo caqabadahaas xoogga leh la wajahayo, ayay haddana waxay tahay magaalada ugu korriinshaha badan ee adduunka ay kaalinta labaad uga jirtaa, sida international standard la wada ogyahay. marka taasaa marka waxay ka turjumaysaa
in ay dalka Soomaaliya meesha hadda ugu ladan ugu fursadaha roon xagga nolosha inay ay magaaladu tahay taasaa caddaynaysa maxaa yeelay meel dadku ku soo badanaya haddaad aragto waa meel yacni fursadaha iyo nolosha iyo waxa ay ku soo badanayso haddii meel dadku ka yaraanayo oo intaqaana laga sii kala tegaya haddaad aragtana dhibaatadeedaa soo badanaysa intaas uun ka fiiri meel kale ha ka fiiri marka 10 sano kadib waxa aan rajaynaynaa inkastay sidaan annagu u shaqayno caqabada nagu gudbana aan u fahamno ay ku xiran tahay waxaan rajaynaynaa 10 sano kadib magaalada Muqdisho in ay noqoto magaalo meesha hadda aan fadhiyo ilaa labada gobol webiyadooda isku xirta isla markaas ka muuqaal fiican kana horeysa magaalooyin aan la kulmin burburka Muqdisho ee la kulantay wabillahi tawfiiq aadi aad oo mahadsantahay gudoomiye panelkan meeshaas noogu xirmaa really waxay kulli aniga aad baan uga faa'iiday I hope in idinkan ka faa'iideysateen madaxda iyo afkaarta ay nala wadaageen amniga is number 1 I think magaaladan marka laga hadlayo horumarkeeda in wada shaqaynta guud ama shacabka ama culimada dawladda levelada kala badan kala sareeyo in wada shaqayntu ay badato laakiin tan ugu horeysa waxay tahay annaga ahaan ummadda Soomaaliyeed inaan fahanno baahida kordhaysa marka laga hadlo dadka fatahaadaha iyo abaaraha iyo ay soo banaan dhigeen ugu yaraan waddanka nus dadku waxay ku jiraan baahiyo gooniya marka annaga horta laga rabaa ownershipka Soomaalida lahaanshada dhibaatada iyo jawaabta in annaga yeelano qof kastana qalbigiisa uu furo IDPs iyo labeling kanaytin waa wax oo sida uu sheegay Cabdirashiid in ka fogeynayo ka jawaabista baahida marka aad u mahadsantihiin daawadayaasha both dadka inta jooga iyo dadka banaanka naga daawanaya social media intaasaan ku xiranaynaa soo dhawaada